الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى يا mahad iskale nicmada ilaahay subxaanaه watacaala aynu haysano bisha ramadaan ay ka mid tahay ugu weyn tahay weliba. allah subxaanaه watacaala bisha ramadaan markuu nooga hadlayay wuxuu oranayay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr. laba qodob baan jeclahay inaan tilmaamo oo kale ah xilliga aynu bilaabayno soonka iyo xilliga aynu dhammaynayno, oo waqtiga ugu horeysana ay tahay suxuurta. ilaahayna uu noo tilmaamay subxaanaه watacaala wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyad min alkhayط اlaswad. inta ooga waaberiga ee fajarka saadiqa ah uu ka soo baxayo oo uu ka muuqanayo ooga beenta ahaa ama fajrulkaadib waxa loo yaqaano, taasoo macnuhu ay tahay aadaanka dambe ee salaada. waa xilliga ugu dambeeya ee cunnada la doonayay in la joojiyo, aadaanka salaada weeyaan. taana hadba waxay ku kala xiran tahay qof walba meesha uu ku nool yahay adduunka. qolaa laga yaabaa in 2 habeennimo, qolaa 3 habeennimo, qolaa 4 habeennimo, qolaa 5, qolaa 6 iyo wixii la mid ah. calaa ayati xaal aadaanka dambe ee salaada subax waa salaada keliya leh 2 aadaan sidaynu ognahay. nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay wuxuu oranayay laa yamnacannakum aadaanu bilaal faina bilaalan yu'adinu bilayl. bilaal ninka la yidhaahdo aadaankiisi yuunan idiin diidin raashinka, maxaa yeele habeenbar buu adimaa. laakiin hadduu adimo ibna ummu maktuum buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, oo ahaa cabdullaahi bna qays ibna umma maktuum, waa ninkay kusoo degatay sababtiisa cabasa watawalla an ja'ahu lacmaa. nebigu wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam, ninkaa hadduu adimo aadaankiyaas isaga waa kan lagu afqabsanayo ee raashinkii lagu joojinayo weeyey, cabitaankii cunidii wixii la mid ahaa. alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala uma atimu asiyaama ila alleyl. soomkii waa soconayaa ilaa laga gaaro gabaldhaca, qoraxdu ay dhacdo. hadday qoraxdu dhacdo khalaas weeyaan. nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisii fi saxiixayn ayaa u daliil ah, ida aqbala alleylu min haahuna waadbara annahaaru haahuna faqad aftara asaa'im. hadduu habeenkii halkan kaasoo muuqdo dhinaca bariga weeyaan, maalintiina ay aado dhinaca galbeedkii qoraxu dhaca, oo qoraxdu ay sii foorastay dhacdaba oo la hubsado inay dhacday, faqad aftara asaa'im buu nebigu oranayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. macnuhu ay tahay waa afurkii waa la joogaa. sidaa darteeda dadka qaarkii baad arkaysaa iyagu ku dhegan oo oranaya qoraxdu markay dhacdo kadib ha la sii sugo 5 daqiiqo 6 daqiiqo iyo wixii la mid ah. arrintaas sax maaha, maxaa yeele nebigu waa noo diiday calayhi salaatu wasalaam. wuxuuna oranayay laa tazaalu ummatii bikhayrin, xadiidkii fi saxiixi albukhaari iyo kayrkiisaba, ummaddayda khayr ka zuuli mayso maa cajaluu lfitra wa akharu suxuur, oo ah intay ummaddaydu dedejinayso afurka, suxuurtana ay dib dhigayso, khayr kama zuulayso. sidaa darteeda haddaad hubsato inay qoraxdii dhacday, waxba ha sii sugin daqiiqad iyo 2 daqiiqad iyo wixii la mid ah. maxaa yeele khayriyada ummadda nebigu wuxuu ku xiray calayhi salaatu wasalaam dedejinta afurta, inay afurka dedejiyaan buu ku xiray. khayriyada ummaddu waxa weeyaan suxuurtii oo dib loo dhigo, aadaanka dambe khalaas halkaas lagu joojiyo weeyaan. ilahi waxaanu ka baryaynaa subxaanaه watacaala biasmaa illahi alxusna wasifaatihi alculaa wabiismi alacdam inuu inaga dhigo kuwa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam haysta, kuna noolaada sunnada nebiga, kuna dhinta sunnada nebiga. ilaahayna uu la soo kulmiye subxaanaه watacaala nebigiisa uu la soo kulmiye. wasali allahuma waslama calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin. wassalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu.